السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شيء فتحي يوتيوب كأداوني سنو فتحينا وفشيا أصحاب تقاليق اسكسون نقد وناكسن مالين وناكسن مالين قرب بدن ورجينا هنا عافمات قبتين سلام وعافمات قبل الحمد لله وحانا قول رجلنا يا مركزتنا هذا العلس إلهي سبحانه وتعالى عافمات كأسقى بحشة أنا الحمد لله مركزت إلهي بكو شكرنا يا وكم هذا علنا يا هذا كوبادنا الله وإسكاله walaalka ama walaashay daawanaysa dhamaantiin waa in salaam iyo sidaan caafimaad qabaan idin rajaynaynaa caafimaad qabtiin asxaabi qaaliga maanta maxay idin wadaa alaab oo intaan in ka hor dhicina idin sharaxo ciyaalka roon ama dadka waaweyn roon haddii uu kugu dhaca hargab ama haddii qabtid mataqaanaa feeraha allergy ama qabow ama asmada ama neefta sida loo yaqaano alaab baan ku wadaa insha Allah aan ku roonaan doontid أنا هذا عيال أو سمينا لكن تتكون إن شاء الله وسوق لندونا مركا أصحاب خالق أنت بحاول يستعمل ملب وايكوك شاحة في كيس واي وأنا ملب في أساس شو معي عرفتين أو أنا هيستو محاكا لون هيستا أصحابي أنت محاي يجرو حب سودو مراها أنت يجرتو ولكن أنا شيدي أنا صفي عن شيء ما كيسا أنا صفي عن وشيت وحاكو شيء وشيت أو الوشي هيلكي وحاس أيضا مراها مركور سوقتي وسقطها كبر بحيه وأنا ذيفنا سوا أنا قيسات أنا وعقلتي نيسا أيضا نضيف شيء نيسا حتى صاحب سود بالضوء استقعدت تقول لي سوا كتير ما شاء الله أصحابي هرتو أنا جا أنت صار بعد إنا نص مية wiilkay yarka aan rabaa inaan u sameeyo oo wax yar hargab iga dhacay marka anoo waxaan jeclaystaa idinkii inoo wadaago waxaa ku meeraysaa wax yar oo liin dhanaanta kama badinaysid dhadhankaas dhanaanka ilmaha hadday dhadhamiyaan markaa caabayaan wax yariisaa ku meeraysaa liin dhanaanta maasha Allah waxaa kaleeto ku samayn kartaa oo ku dari kartaa toonta waa taqaantiin qof kasta uu yaqaanaa waa toonta originalka ama toonta baxda waaye midda bacrimiska ama ahan kinyeejiga waaye midda kinyeejiga marka toontaan wax yariisa jug ka siinaysaa laba xab camal oo weel nadiif mooyo nadiif ah ku siisay shaaxmeerka u dhigaysaa dheecaanka yariiska oo ka baxo wadan biyo ku darin qaado ina saas qaado kula dhaxid ayaad kala bixi kartaa ugu dari kartaa cunuga laakiin ilmaha uu fiicno aniga marweyna ku dar hadeertaan dadka waaweyn insha Allah markooda ayaan ku dari doonaa ama ay tusi doonaa ما شاء الله maxaa haystaa inta maxaa ku haystaa weelkaas nadiifka ah iyo qaadada sirta inta ku haystaa marka qaadada waxaan rabaa inaan ku qiyaasto xabad sawirna aan rabaa inaan ku darsado qiyaasteeda aan rabaa inaan ku qiyaasto inta ilaahay awood la ogolaado insha Allah waa arkaysiin qaado waaye iyo haafir ayada laftirkeeda kama badinaysid malabka inuu xoog iyo awoodda malabka inuu yeesho la rabaa waa kaasa malabkiyo saafi ah سافو هاي أصحابي ما شاء الله يعني أنت أنا تصفي عن مكس كل حق النساء ملك هراي ويركع أو قدر سرايا قاصف حب سودا بدل لكن أنتوا نوالك يجيبوا حسمن وعند عندنا أسود رعي وجد حنجي اسمه نقدام مرك السائل ما هو سين ساوى علمها دور ما سين ساوى سائل ما هو سين ساوى عنو قاربتينا سيسد وقت جاسين سوا وقت ما أوكي waxaad siinaysaa cunuga waqtiga aad siinaysid malabka waxa weeyaan aroorti ilmaha markay hurdada ka soo kacaan haddaad rabtid subaga anima jecli subaga ilmaha wadnahu waxyaalo ka gaarsiin karaa laakiin dad badan oo Soomaali oo subag ku darsanaya waan arkay laakiin anima ila fiicna subaga hoos cunuga exercise jirkiisa ma bilaabin ma shaqeynayo cunug soconayo oo mataqaanaa oo muhadartaan iskuulo ma furno meel ma furno ilma xataa hadday meel aadayaan subaga jirka qofka wadnaha wuxuu xiri karaa xididadiisa wadnaana xididada yaryar uu leeyahay qof kasta waa ogyahay deen xabad soodadan midda saliidda ah xabad soodana ka fiican xabad soodada saliidda ah ma fiicna Soomaaliya isma qalma jiraan xabad soodada saliidda ma fiicna hadiiba ay noqoto inaad wax ku qasaysid ama malab ku darsanaysid amba shaax ku darsanaysid oo aad leedahay hargab qaba xabad soodada miraha guriga dhigo shiido weelasha waxa lagu rito daboolka loo caado oo mataqaana cusbada iyo lagu rito ku shubo
qaanadaada meel ka saar gurigaaga ku taalo mar hore ana hadda midaan shiitay an mudaawi ii taala marba wax ka isticmaalayo marka cunuga aroorta isagoo baahan feerihiisa ay nadiif yihiin waana waxba kale aan isticmaalin yaad siinaysaa hadduu cunug yar yahay qaadada ka yaraad siinaysaa hadduu cunug weyn yahayna qaadadan okay ku tahay qaadadana ku siinaysaa ilmaha haddii aad bartid oo ku bilowdid ayagoo yaryar markay weynaadaan markaa diidayaan daawooyinka antibiotic oo ilmaha la siiyana way oga reysanayaan insha allah adoonan daawo lacag kaaga bixin oo cunugaaga la welwelin oo mataqaanaa waxba dhibaato ah farmasi intaad tagtid aad daawo dhibaato gaarsiin karta aad usoo gadin intaana iskugu qasaysaa liin dhanaan yariisa ku miiraysaa jab liin dhanaan aan soo qaadanaya ani hadda liin dhanaan ku miiraya insha allah idinkoo arkaysiin asxaabta videogan wax yar xirayaa maasha allah asxaabta waxaan soo qaatay jab liin dhanaan mirihii aan kasoo bixiyay saa arkaysiin mirihii waan ka bixiyay marka ma u baahna inaan shaax meel u dhigo moogtahay halkaas jabka waxaan ku darsanayaa malabkuu badan yahay xabsoodadana waa qaado iyo nus ama qaado iyo bar okay haddana waakaasaa biyihii liinta soo ma artiin biyihii liinta iyo malabkii iyo aan si fiican haddana isku dhex gelinayaa wuu yara jilcayaa marka malabka marka hore culays waa soo maaha liinta markaa ku darsid jilaacu noqonayaa okay wax badan ma qasaysid marka oo muddo oo lahay isbuuca u qasanaysaa toddobaad kaste mid fresh aa qasanaysaa weel daboolana waa la dhigaysaa aayara meel fiican dhiganaysaa jab subax kasta adi salaada subax markaa tukanaysid calaa cunug qaada afka ugu tuur insha allah waxbaa ka dareemi doontaan ama ilmaha ooga nasan doono duufka iyo hargabka qofaca qabowga waxaas dhan ilmaha feerahooda ay ka safeynayaan waa kaasaa halkaas si isku haystaan maasha allah tabaaraka allah saasa iskugu qasay asxaabta qaaliga eh waxaan jeclahay inaad aad tijaabisid ood ogaatid qiimaha iyo waxtarka uu leeyahay malabka iyo xabadsoodada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa sheegay in ay daawo tahay wax kasta ay daawo u tahay inta aana ka ahayn malakumood waa loo dhintaa qof kasta oo muslimana wuu garowsan yahay wuuna ogsoon yahay inuu malab uu sugaayo maalin maalmaha ka mid ah uu noqon doono qof naxash saaran ama loogu yeero magaca maydka oo laga dhaafo magacaaga adduunka hooyada iyo aabaha iyo ehelkaaga ay kugu wici jireen dhammaantan qaatumada allah noo suubiyo insha allah qowlka iyo bana kuwii markasta afkooda uu ka bixin rabbi subxaana wa tacaala ha naga dhigo kuna kalsoonaado wax kasta intuu ilaahay uu keeno oo ku noqda dad raalli ku ah hadday noqoto xanuun hadday noqoto mawd ku yimid qof ehelkaaga ah hadday noqoto inaadan ku qawmamaynin oo noqoto qof islaam ah oo iimaankiisa uu buuxo oo wax kastana ilaahay ku shukriyo kuna mahadnaqo insha allah hooyo ama abaayo ama cid kasteetaba oo caruurta haysata caruurta caafimaadkooda ha lagu dadaalo insha allah waxyaalo badan oo mataqaanaa oo original ah ama organic ah oon daawooyin ahayn oo dhirta madaawaadka ah waa wixii weligeed la isku daaweyn jiray qof kasteeta wuu ogyahaa dhirtan waa wixii weligeed la isku daaweyn jiray waxa baxo oo la isku daaweyn jiray oo ilaa anaga asxaabihii ilaa dadka naga sii horreeyay isticmaali jireen in aan dhaqanka ka guurna ma fiicno inaan raacnaa fiican hadda asxaabay intaas hadda aniga intaan weelkan ku jirto hal isbuuc diyaar waaye hal isbuuc waa diyaar ka badan marka inaan qasaba rabi wixii inay oolimaad noqdaan ma fiicno inta wax oolimaad kaa noqon lahaayeen maxaa ku fiican hadda qas week hayso ama shanbari hayso markuu kaa dhamaado ku kalo fresh haddana samayso ilaa wixii adiga waxa haysatid oo guriga ku samaysanaysid waaye soo maaha marka sameey wixii adigoo maxaan ku dhahay hadhigin oo wax oolimaad ilmaha xataa way diidayaan shayga markuu wax badan uu yaalo isagoo qasan liinna ay ku jirto aad waxaad isku dardarto isku migsi garaysa ay tahay dhadhankaa ka bedelmi kara marka dhadhanka hadduu bedelmana cunuga ma kaa cunaayo marka insha allah tacaala ku dadaal intaan soo sameey tijaabi wixii committee ah hoos nooga reeb haddaad ku heshid
channelkana subscribe noo dheh insha allah commentiga iyo reeb walaashay ama walaalkaygii daawanayo laagta iyo dhiirigelin waayo aniga adiga laakiin waxba weyn xaggaaga kama ahan kusoo dhawaada insha allah fideoyaal kale oo qurux badan ku saabsan waxyaalaha dhirta iyo madaawaadka ku saabsan waxyaalaha mataqaanaaye anaga waxyaalo badan noogu filan bini aadamka ayaad insha allah channelka ka heli doontaa madadaalada waa ku jirtaa kama maqno cunto karinta waaba channelka magaciisa oo waa cunto karinta mataqaanaa oo magacayga Fatxina official markii laga baxo haddaad gudaha sii gasho waxaa kusoo baxaysa kusoo dhawow cunto karinta marka cunto karintana waa number 1 wixii aan kusoo galay YouTube-ka insha allah waana wadi doonaa waxyaalo kale oo badan oo cuntada kamid ah waan soo gelin doonaa oo ku badan cuntada anaga aan karsano Soomaalida ah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.